بسم الله الرحمن الرحيم وعن داوديال guud ahaanba meel boodan joogtaan kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku wareysan doono mid ka mid ah mas'uuliyiintii aasaasay isla markaana xubinta ugu sareysaba aan ku tilmaami karo maamulka Maqir State ee ka dhisan dalka Soomaaliya bal aan ugu horeen magaciisa ku bilaabay Maxamed Deeq Sheekh Cabdullaahi adigoo kusoo dhawaanaya telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee fursadan uu ku siiyay xafiiskiisa Captain bal maxaad ku bilaabaysaa بسم الله الرحمن الرحيم وحن قبل يا مجا إلهي وبسنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هلك عن محض وانا غاية صحفيين الصوماليات مركز تيجوجان وحن دريا رنتي سيد وهايان شقادة صوماليات كو هايان سيد النماء يكرتي له وجدك عن مانتا عن maanta aan wareysigan aan ku leenahay waxa ugu muhiimsan maamulka Maqir State oo muddo ilaa 7 sano ah soo jiray oo ah maamulada ka jiray dalka Soomaaliya ujeedooyinka maamulka loo aasaasay markii hore bal sawir guud hadii aad naga siisid anaga iyo daawadayaasha ujeedooyinka loo aasaasay maamulka Maqir State maamulka Maqir State markii hore wuxuu ka tirsanaa deegaamada Maqir wax ka tirsanayeen maamulka Puntland ay ku darsadeen 1998 maadaama dawladda dhexe ee Soomaaliya 91 ay burburtay maamulka Puntland waa lagu kala tagay oo heshiiskii la galay oo beelaha deegaamada Puntland way ku kala baxeen maamulo horena way ka baxeen anaga aan ugu horeyno maamulada naga dameeyay oo hadda sida Khaatumo State oo kale way ka baxeen wax ka tirsanayeen maamulka Puntland marka waxyaabaha nagu kalifay in anaga laftakayga aan hadda inaan boorka uga jafno maamulka Maqir State oo muddo soo jiitamayay horena u shaqeynayay haddana aan rabno inaan aan xoog u saarno si maamulkaas uu deegaamada Maqir State oo uga shaqeyn lahaa deegaanada uu maamulku ka arrimiyo hal iyo laba wuxuu ka arrimiyaa gobolka Sanaag gobolka Highland iyo galbeedka Bari waa gobol aad u waaweyn isuguna filan dhan kasta awoodooda xagga bad iyo barina si fiican aan ma garanaysaa goorma la aasaasay Maxamed Deeq maamulkan Maqir State maxay u sayahay wax qabadka ilaa iminka la taaban karo ee wax goolka ee uu maamulku qabtay runtii wax badan uu qabtay deegaanka Maqir State maamulka Maqir State ayaa ka jira ummaduna way aragtaa runtii wax badan uu qabtay waxa kamid ah wuxuu aad uga qayb qaatay sida hadda maxaan ku raahdaa deegaamada magaalada la Asqoray dekada la Asqoray oo hawl badan aan kaga jirno sidii ay u dhismi lahayd waxa kale oo jira jaamacadda Maqir State University ka dhisan magaalada Baran oo iyadana laftakeeda ay maamulku wax weyn u ka geystay waxyaabo badan oo kale tan uu qabtay dadkii reer Maqirna waxay maanta go'aankooda iyo horena u gaareen inay ka tashadaan aayahooda iyo wadajirkooda iyo sidii ay wax u qabsan lahaayeen maanta waa la socota wadanka wax ka dhaltay dawlad rasmi ah ee federaalis ah dawladda oo runtii aan wax badan ee Soomaalidu ay sugayeen maantana ay maartay ay gacantooda ku jirto annaguna aan la shaqeyn doono haddana ka maamulahan waxaad xustay in maamulka dawladda ee iminka la magacaabay aad si weyn ula shaqeyn doontaan bal xiriir intee la eg ayaa maamulkiina Maqir State kala dhaxeeya maamulada kale ee ka jira dalka Soomaaliya runtii waa run maamulo badan ayaa jira xaqiiqatan anaga waxa hadda aan aad isugu dhownahay oo wada shaqeyn fiican naga dhaxaysa maamulka Khaatumo State oo runtii oo ah maamul u taagan jiritaanka Soomaaliyeed aan soo taageersanahay iyagana taageersan waxa kale oo wada shaqeyn leenahay dawladda dhexe ee Soomaaliya oo ayadu dawladdii u sareysay Soomaaliya haddii aan soo laabano dalkan Koonfur Afrika oo ku nooshahay Maxamed Deeq ma jiraan xubno kale oo ka tirsan maamulka Maqir State ee ku sugan wadankan way jiraan xubno ka tirsan way jiraan wayna joogaan waana arrin aan isla ognahay wadanka kaliya maaha sida America UK iyo meelo kale oo qurbo kale iyo gudahaba aad ayaan uga wada shaqeynaa sidii aan
aan hawshaas loo hayo ummadda in halka magaranaysaa looga wada shaqeeyo hal dhanna looga soo jeesto shacabkuna diyaarna uu yahay inay ka tashadaan aayahooda iyo jiritaankoodana ay muujiyaan iyagoo u taagan mar walba wadajirka Soomaaliya iyo midnimada Soomaaliya kana go'an tahay muqadas inay tahay Soomaaliya inay hal tahay aan laba ahayn isuna baahan tahay Soomaaliya oo maanta ay u baahan tahay Soomaaliya in si magaranaysaa wadajir ah ay wax wada qabsato annaga taas ayaan aad u taageersanay mar walbana aan sheegnaa shacabka guud ee ka soo jeeda maamulka Maqar State deegaanada uu ka arrimiyo tira ahaan inta wadankan Koonfur Afrika ka joogta bal intaad isku imaataan ma kulantaan oo muxuu yahay xiriirkeedan kala dhaxeeya maamulkiina Maqar State ee ka jira dalkeena Soomaaliya runtii waa su'aal aad u muhiim ah xiriir wanaagsan ayaa naga dhaxeeya mar walba waxaan aan sugu nimaadno shirarka marar horena waan shirnay waxa aan ka wada hadalnaa waa horumarka dalka Soomaaliya khaasatan deegaamada Maqar sidii loo horumarin lahaa dhan kasta ee bulshada marka xaqiiqatan waxa aan aad xoog aan rabnaa aan saarno oo qorshaha iyaga istaraatiijiyada tahay sidii maamulka uu caga dhigan lahaa dawladda dhexe ee Soomaaliyana aan u wada shaqeyn lahayn goorma ayaa la aasaasay sanadku ahaa markii maamulkan Maqar State didabada loo taagay waxaa loo taagay 2006kii dhexdeedii bishii 6aad xaqiiqatan culeysyo badan oo xagga maamulada u dhaxeeya aan u dhaxayno oo hareeraha naga xigan dariska nahay sida Puntland iyo Somaliland caqabado badan oo naga yimid ayaa uu ku soo bixi waayay maamulka awoodiisana u xoogsan weeday laakiin maanta markii xaqiiqada dhabta wacyigelin badan aan sameynay shacabkuna ay arkeen in dantooda ay ku jirto in iyagu ay wax qabsadaan aan cidna wax u hayn dhibaato badan ay ka soo gaartay maamulada dariska sida Puntland oo kale oo runtii ku tilmaamay dadka badankood inay yihiin qaarna argagixiso in ay tahay burcadbadeed caqabada ugu weyn halkaas ayay naga timi oo anagu laftaga awoodeeda ay ku gaabisay laakiin maanta alxamdulillah shacabka ayaa tashaday haddana shirar badan ayaa u socda shirweyne ballaaran oo la sugu wada imaan doono oo maamulka lagu xoojin doono waan dhici doona waqti dhow oo loo balansan yahay gudaha iyo dibadda la saga imaan doono xaqiiqatan aad ayaa waxaan aan u rajeynaynaa in dawladda Soomaaliya arrintan nala garato ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtana waxaan aan u sheegaynaa deegaamadaas inay yihiin deegaamo Soomaaliyeed maamulkaasuna u taageersan yahay maamulka dawladda jirta dhexe ee federaaliga ee Soomaaliya xukuumadda cusubna aan la shaqeyn doono horena aan ugu taagnayn inaan maaragtay Soomaaliya ay tahay hal mid aan laba ahayn sidii wax wada qabsan lahayd iyo sidii wax wada baxgaran haddii aan usoo laabto Maxamed Deeq waxaa tiri maamulkan waxaa la aasaasay sanadkii 2006 oo iminka waxaa laga joogaa muddo 6 sano ah maamul waa la ogyahay haddii uu jiro dabcan waxa uu ku tiirsan yahay qolooyin kale haddii ay noqon lahayd dibadaha gurubyo ka soo taageera ama dalka gudihiisa ama Soomaalida ba ahaato bal taageerada dhanka dhaqaalaha ah ka maamul ahaan halkee buu ku tiirsan yahay horta waa arrin su'aal aad u muhiim ah wuxuu ku tiirsan yahay dhaqaalaha maamulku dadka dhexdooda iyaga ayaa ismaamulay iyaga ayaa ka tashaday aayahooda iyo sidii ay magaranaysaa wax u qabsan lahayd maamulkuna shacabka ayaa doortay oo soo xushay muddadii uu dhisnaa maamulka ma jirtaa xiriirada dhanka bulshada gaar ahaan dhanka ganacsiga iyo waxbarashada iyo iskuulaad uu dhisay iyo bal wax qabadkiisa waan ku soo sheegay waxyaabihii uu ka qayb qaatay maamulku inkastoo culeysyo badan uu maamulka haystay oo xagga siyaasadda ah oo hareeraha maamulada ka xiga ay kula dagaalamayaan si ay u waqalahayaan awoodiisa taana maanta waa laga soo gudbay oo runtii waa arrin laga soo gudbay dadkana ay meel uga soo wada jeesteen haddii aan ku soo laabto mar kale Maxamed Deeq su'aal ahayd xiriirada maamulka kala dhaxeeya maamulada kale ee dariska ah marka qaar waxaa jirta shirar loo balamiyo maamulada guud ee dalka Soomaaliya ka jira shirarkaasi ma ka qayb gashaan muxuu yahay mowqifka aad uga qayb gashaan waa su'aal aad u muhiim ah waxa aan runtii shirarka maamulada marka aan u soo noqono waa maamulkayaga naaqus fara badan ayaa ku yimi burbur badan ayaa ku yimi
waxaan kusoo jirnay xaalad aad u adag ayaan soo marnay oo maamulku soo maray waxyaabaha mowqifka anaga anagu aadan oo xagga maamul ahaan nagaga aadan shirarkaas waa sidii Soomaaliya hal noqon lahayd ee laba noqoteen sidii dawlad iyo nidaam iyo kala dambeyntii iyo sharaftii iyo karaamadii Soomaaliya lahayd dib ugu soo noqon lahayd dardaaran bal maxaad ku dardaarmaysaa Maxamed Deeq waxaan ku dardaarmayaa bulshaweynta u dhalatay Maakhir State in ay taageeraan maamulka in ay ka tashadaan aayahooda in ay wax wada qabsadaan sidii ay u heli lahaayeen xuquuqda ay leeyihiin aad baad mahadsantahay kaasina waxa uu ahaa Maxamed Deeq Sheekh Cabdullaahi oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii aasaasay isla markaana dhidibada u taagay maamulka Maakhir State ee ka jira dalka Soomaaliya isagoo markaas inagu soo booqday xarunta telefishinka qaranka Soomaaliyeed uu ku leeyahay magaalo xeebadka Cape Town ee dalka Koonfur Afrika anigoo Cabdirasaaq Najecel ayaa barnaamijkan idin soo saaray idin la socodsiinayay dhanka kaamirada waxa iga hagayay saaxiibkay Cabdirasaaq Kambala tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadino